السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة مقال كحكاية channel كعلم سيدي. haddii aad nagu cusubtahay saaxiib channelka subscribe saar si ay ku soo gaaraan dhammaan muuqaalada aan soo gelino. haddii muuqaalada ay ku qanciyeen like saar siina share gareysay asxaabtaada kale oo arkaan. maanta waxaan idin haynaa barnaamij ku saabsan habka aad ugu soo degsan karayso YouTube ka muuqaalo isla markaana aad u adeegsan karayso YouTube aad leedahay oo ku qaasa YouTube channelkaaga aad u adeegsan karayso. inta badan YouTube ka muuqaalada la soo dhiga waxa ay leeyihiin copyright oo waxyaabo ugu badan dadku caqabadaha kala kulmaan marka aad YouTube kaaga soo geliso YouTube kale muuqaalkiisa copyright ayaa ku qabanayo. waxa laga yaabaa website kaaga inuu ganaax fuulo ama ugu dambeyn laga xiro haddii 3 jeer uu gaaro. waa arin la wada ogyahay ama la wada garan karo. sidaa daraadeed maanta waxaan muuqaalada hadda aan arkayno oo bartaan kaaga muuqda gabi ahaan waxay leeyihiin copyright ma qaadan kartid. haddaba markii aad u baahan tahay inaad hesho muuqaal copyright aan lahayn ee aad u adeegsan karayso YouTube kaaga kaliya waxay u baahan tahay inaad marto shuruucyadan iyo qaabkan aan sheegay ay u baahan tahay. marka aad qaabka marto muuqaalada aad soo dejiso ee aad soo geliso YouTube kaaga wuxuu noqon doonaa copyright la'aan oo wax cid kugu qabsanaysa ma leh. marka ugu horreyn marka aad rabto inaad barnaamijka samayso sida caadiyan muuqaalada aad jeceshahay oo kale xagga kore ku qoraan. tusaalahan hadda waxaan qorayaa casharo oo kale ayaan qorayaa casharo muuqaalada aad jeceshahay waxa xirileed la ah ama la mid ah waxaan qorayaa tusaale oo kale casharo ayaan ku qorayaa halkaas. marka casharo qoro halkaas si toos ayaan search u galay oo ii raadiyay. marka halkaas joogto 3 dhibcood ee ugu sareysa kore ee la moodo volume ee calaamada wax lagu dheereeyo volume oo kale la moodo fiiri calaamad dhaxsi. marka halka dhagsiiso wax badan halkan kaaga soo baxaya waxaad ka doorataa meel ay ku qoran tahay Creative Commons ka dooro kadib waxaad tiraahdaa apply. halka markaad barnaamijka soo gasho dhammaan muuqaalada aad arkayso ee hortaada ka muuqda waa no copyright waaye waa la ogol yahay in dib loo adeegsado. sideen koobin karaa waa su'aasha aad isweydiinayso. wax weyn maaha. hadda tusaale oo kale muuqaalka hadaan meesha yaalo waxa aan ka helay muuqaalkan ay ku qoran tahay oo kale casharo lagu qaadanayo dagaalka Beder. okay kaasoo kale aan ka hadlayaa yaasiin Sheekh Dir oo kamid yahay culimada aan sida gaarka u taageero. muuqaalkan hadda waxaad u adeegsan karaysaa YouTube kaaga. sideen ku aaminaa ama sideen ku ogaadaa waa su'aal la isweydiin karo. isla muuqaalka hoostiisa ayaad dhagsiinaysaa. markaad dhagsiiso kadibna waxaad halkaa ka arkaysaa license ay ku qoran tahay Creative Commons Attribution license reuse allowed. waa dareemaysaa halka waxaa kugu qoran in dib loo adeegsado waa la ogol yahay. marka muuqaalada hadday noocan oo kale yihiin waad soo gelin kartaa YouTube kaaga waadna u adeegsan karaysaa. laakiin guud ahaan aan ku siiyo talo inta badan isku day muuqaalada inaad adiga samaysato. sidaas ayaa kalsooni badan kuna qurux badan. sidaas aan ku soo jeedi lahaa talahan. inta badan horumarka waxyaabaha laga rabo YouTube ka wuxuu yahay inaad yeelato sumcad iyo lacag. ugu yaraan haddii aad lacag ka hesho muuqaalada haddii aad YouTube kale ka soo qaadato waxaad meesha ku weynaysaa sumcaddii ayaad ku weynaysaa oo qof caan ah ma noqon doontid. marka isku day inaad ahaato soo saare wanaagsan. aad ugu mahadsan tahay daawashada channelka. fadlan muuqaalka duu ku qanciyo like inoo saar. aad ugu mahadsan tahay.